waxaan oo wanaagsan daawadayaal maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay filim Japanese ah oo lagu magacaabo qoyskii cimriga dheeraa. daawo oo iska taxadar. filimka wuxuu ku bilaabanayaa qoyska Suzuki. qoyska Suzuki waxay ku nool yihiin xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Tokyo ee caasimadda Japan. aabaha oo lagu magacaabo Yoshiyuki waa mid telefishinka daawanayo, halka inankiisa Kenji iyo inantiisa Yui ay moobilka isticmaalayaan. waxaynu arki karnaa in qoyska nolol maalmeedkooda uu moobilka ku tiirsan yahay, taasi oo ah mid caadi ah waqtigan casriga ah. maalintii xigtay Yoshiyuki ayaa wuxuu soo kacay xili dambe, wuxuuna arkay in gambaleelkii uusan shaqaynayn. banaanka ay u soo baxay wuxuuna weydiiyey xaaskiisa waxa dhacay. waxayna u sheegtay in wax walba oo koronto ku shaqeeyo ay istaageen maadaama ay korontadii go'day, taasi oo argagax ku riday qoyska. Yoshiyuki ayaa wuxuu isku dayay inuu la xiriiro kambaniga korontada, laakiin waxaa dhacday in xitaa moobilkii uusan shaqayn. qoyskii way labisteen waxayna aadeen dhankaas iyo banaanka, halkaas oo carruurtii iskoolka aadan aabahana uu shaqo aado. waxayna arkeen dad iskugu yimaaday meesa wiishka maadaama wiishkii uu korontadii ka go'day. asagoo daasan Yoshiyuki waxa uu cararay dhankaas iyo tareenka, waxaana dhacday in tareenkii uu joojiyey shaqada maadaama ay korontadii baxday. dadkiina waxay bilaabeen inay u lugayaan xarumahooda shaqada. durbadiiba waxaynu arkaynaa Kenji oo baaskiilkiis wato isagoo u socda dhankaas iyo iskoolka, halkaasi oo laba nin ay damciyeen baaskiilkiisa. marka oo Yoshiyuki soo gaaray shaqada wuxuu arkay in wiishkii uu jabay, taasoo keentay in ay kadibna gudaha ayay u galeen, laakiin waxay la fajaceen inaysan shaqaynayn kombiyuutarradooda maadaama ay korontadii maqan tahay. si oo ah hooyada carruurta ay aaday subarmarketka si ay u soo iibsato sumacyada maadaama ay korontada maqan tahay. Yoshiyuki asagoo jooga xafiiskiisa shaqada ayaa wuxuu booskiisa go'aansaday in uu kala diro shaqaalaha maadaama ay korontada maqan tahay. markii uu gurigu soo socday Yoshiyuki waxa uu aaday store lagu iibiyo baaskiilada, wuxuuna ka yaabay inuu arkay qiimihii baaskiilada oo kor loo qaaday maadaama uu dalabka batay. laakiin ugu dambeyntii Yoshiyuki waa uu iibsaday. waa sidii gaaska xilliga qaboobaha Yurub. habeenkii marka kala gaaray qoyska Suzuki waxay bilaabeen inay si nabad ah ku casheeyaan. Kenji ayaa wuxuu aaday dhankaas iyo suuliga, wuxuuna ka yaabay markuu arkay in falaashka uusan shaqaynayn. marka ay casheeyeen kadib carruurtii waxay ku laabteen sariirtooda, laakiin waxaa soo wajahay caajis maadaama ay u qabsadeen inay moobilka ku seexdaan. qoyskii oo dhan ayaa waxay isugu imaadeen dhankaas iyo balakoonka si ay u daawadaan magaaladiiyo mugdi noqotay. maalintii xigtay Yoshiyuki wuxuu arkay booskiisa iyo carruurtiisa oo u socdaan dhankaas iyo tuulada, laakiin Yoshiyuki wuxuu isdhahay korontadan barye un ayay maqnaanaysaa. durbadiiba waxaynu arkanaa Mitsi oo biyo u aroorayso dhankaas iyo tuubada babliga ah. markii ay soo gaartay waxay kala kulantay wejigabax maadaama biyihii ay dhammaadeen. waa maalintii toddobaad oo ay korontada maqan tahay, waxaana dhacday in subarmarketyadii ay raashinkii ka dhammaadeen, halka xafiisyadii iyo iskooladiina la xiray, taasi oo keentay in dad badan ay u hayaamaan dhankaas iyo tuulooyinkooda. Suzuki family waxay go'aansadeen inay ayakana aadaan tuuladii ay ka yimaadeen. maalintii xigtay waxay qaadan kareen ayay aruursadeen. carruurta baaskiiladooda ayay wateen, halka Yoshiyuki iyo xaaskiisa ay hal baaskiile laysla fuuleen. waxay ku khasban yihiin in ay waddada biyo ka iibsadaan, laakiin biyihii ayaa qaaliyoobay. ugu dambeyntii waxay gaareen airboortka, halkaas oo ay qorsheynayaan in ay ka duulaan tuuladoodana ay aadaan. sidoo kale wejigabax ayay kala kulmeen marka lagu yiri in duulimaadkii la joojiyey, ayna dib u bilaaban doonaan marka ay korontada timaado. ayagoo aanan oqon meel aadaan. habeenkii markii la gaaray waxay aadeen hotel. waxaa dhacday ninkii hoteelka lahaa inuu ka faa'iidaysto qiimahana uu ku kordhiyo, laakiin waa ay ku khasban yihiin. maalintii xigtay Kenji ayaa wuxuu aaday store, halkaas uu kasoo iibsaday buug qariirad ah si ay u aadaan tuuladooda. qoyskiina waxay bilaabeen inay safarkooda sii wataan. markay cabaar socdeenba waxay arkeen waddadiioo ay dadka buuxiyeen, kuwaasi oo ayagoo dhan u socdaan tuulooyinka. siday u socdeen waxaa ka hor imaaday buundo madow. waa maalintii 16aad ee safarkooda. Yoshiyuki ayaa wuxuu cabay dhaladii biyo ee ku dambeysay. Yoshiyuki wuxuu bilaabay inuu cabo biyaha webiga. marka ay webiga ka dhaqaaqeen waxaa durbadiiba ku dhuftay duufaan. waxayna u carareen dhankaas iyo meel guri ahayd,
markay duufaantii dhamaatay waxay arkeen in alaabtoodii dhan ay kala firdaday baaskiilkiina uu taayirka ka banjaray. Kenji ayaa wuxuu taayirkiisa ku habeeyey asagoo adeegsanayo qolofka taleefankiisa. safarkoodana waa ay sii wateen ka hor inta aysan la kulmin dad dalxiisayaal ah, waxayna bareen sida loo cuno geedaha wadooyinka ka agbaxo. maalintii xigtay safarkooda ayay sii wateen oo Yoshiyuki daal awgeed uu dhulka ku dhacay. Yoshiyukina wuxuu bilaabay inuu cuno cayayaanka. durbadiiba waxay arkeen doofaar oo beerta daaqayo. qoyskii farxad ayay ku dhaceen kadib markii Yoshiyuki uu ku guulaystay in doofaarkii uu dilo, laakiin waxay ka cabsi qabaan in ay gowracaan. durbadiiba waxaa u yimaaday nin kaasi oo doofaarkii u jarjaray. markii gurigiisa uu geeyey doofaarkii ayuu u soo kariyey waa uuna siiyey. maalintii xigtay waa ay ka soo tageen ninkii, safarkoodana ayay bilowdeen. ayagoo socdaan waxaa ka hor yimid webi, waxayna ku khasban yihiin inay gooyaan webiga si ay dhankaas kale u aadaan. waxayna ku guulaysteen in hooyadii iyo inantii ay webiga goysiiyaan, halka Kenji iyo aabihii ay dib u laabteen si ay baaskiiladii u soo raraan. laakiin durbadiiba waxaa dhacday in uu roob bilowdo, biyihiina ay bataan, taasi oo keentay in biyihii ay qaataan Yoshiyuki. Kenji ayaa si dirqi ah u kasoo badbaaday. saddexdooda waxay bilaabeen inay safarkooda sii wataan, waxayna arkeen meel waddo tareen ah, waddadiina ayay qaadeen. durbadiiba waxaa soo weeraray eyda, waxayna sababeen in hooyadii ay ka dhacdo meel buur ah. carruurtii ayaa u orday si ay u soo badbaadiyaan hooyadood, waxayna arkeen in lugteeda ay jabtay. waxaana dhacday inuu meesha soo maro tareenkiina waa u joojiyey. dadkii tareenka ku jiray ayaa waxay daaweeyeen hooyadii oo lugta ka jabtay. muuqaalka xigo waxaynu arkaynaa Yoshiyuki oo ku soo caariyey qarka webiga. nasiib wanaag waa uu soo kacay. nasiib wanaag wuxuu arkay tareenkii oo meesha marayo, halkaasi uu iftiimiyey baaruud si uu ku baaqo tareenka. nasiib wanaag tareenka ayaa u joojiyey. qoyskiina mar kale ayay dib u wada kulmeen, waxayna ku guulaysteen ugu dambayn inay gaaraan tuuladooda. halkaasi ay kula kulmeen awowgood. muuqaalka xigo waxaynu arkaynaa inay 2 sano ka soo wareegatay xilligii ay korontadii baxday, halkaasi oo qoyska Shizuki ay ku nool yihiin tuuladooda si farxad leh. maalin waxaa dhacday in Yoshiyuki uu gambaleel soo garaaco, kadibna waxaa dhacday in tuuladii oo dhan ay soo kacdo maadaama ay la fajaceen in korontadii ay dib u soo laabatay. asbuucyo kadib qoyskii ayaa waxay dib ugu soo laabateen gurigooda Tokyo. wararka ayaa waxay sheegayeen in koronto la'aantii 2 sano jirtay ay sabab u ahayd shuuca ka yimaadeen dhankaasi qoraxda. filimkana meeshaas ayuu ku dhamaaday.